halkan waa Jigjiga xarunta dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaan ahay Nimco Cumar Xuseen waa mar kale iyo barnaamijyadeeni waxa maanta marti inoogu ah Asma Cabdi Cali oo ah makaaniyad ka shaqeyn jirtay mid kamid ah geerashada magaalada Jigjiga soo dhaw waan dhaweyn Nimco walaal maasantay waa tuma Asma taariikhdaada kooban Nimco taariikhdeedu ma badna waa in yaro kooban magacaygu waxa Asma Cabdi Cali waxaan ahay dhalinyarada deegaanka waxaan dugsiga saddex ka qaatay Axmed Guri dugsi saranaha iskoolka soo kale laba diblooma deegaankan ka qaatay Horni College oo clinical nurse iyo automotive service isla xaadirkana ardayad baan ahay heerka jaamacadda digriga marka waxaan ku shaqeeyay maadaama automotive service qaatay waxaan ku shaqeeyay makaaninimo muddo 2 sano ku dhawaad iyo muddo 2 sano iyo wax yar ayaan geerashada deegaanka kulmo mid ka shaqeeyay inkastoo amiin geerasho badna kadib hadda marka dambe waxaan shaqeeyay hospitaalka weyn ee deegaanka referral hospital of federal hadda waxaan shaqeeyaa hay'adan riskiyada ayaan darawalka ahay IRC maxaad ku dooratay inaad makaaniyad noqoto dabadeetna aad ka shaqeyso mid kamid ah geerashada ku yaala magaalada Jigjiga walaal horta waa hadafkayga waxa weeye inaan darawal ciriga ka dhulka noqdo iyaan oran jiray yaraanteedii aan kugu daray darawalka cirka waxaan ka waday baylodnimo ka dhulkana waxaan ka waday darawal iyo makaaniyad israaca marka maadaama automotive service qaatay ayaan hor shaqo u waayay markii dambe waxay igu qasabtay inaan geerash ka shaqo galo maadaama diblooma ahaan ku soo qaatay makaanigi ayaan ka shaqo galay geerashkii laakiin alxamdulillah ilaahay xumaan iyo dib iyo ceeb galama kulmine shaqada caadiga ee dhalinyarada u baxda aroortii in dhakhtarada galaan in xafiisyada galaan in hoteelada uga shaqo galaan anigana shaqada maalmeedkan bay ahaydoo geerashka uma shaqo tagi jiray marka alxamdulillah saasay si wanaagsan ka hor intaanad soo galin shaqada aan hawlahan bilaabin maxaad qaban jirtay ardayad baan waxaan dhiganayay automotive service baan dhiganayay oo makaani una rag badan baan ku jiray kaliya wax dumar ka soo baxday deegaanka Jigjiga Polytechnical marka dawladda hore maalinta ay dhacaysay ardayda qalin jabinaysan aha kadib markii dambana waan ku shaqo galay oo geerash ahaan ku shaqeeyay maadaama automotive hayste saasay ahayd waa gatay sidaas la mid ah ka hor intaanad hawshan soo guda galin iyo hadda oo hawshi ku shaqeysay maxaa farqiyo u dhaxeeya hadda waxa farqi u dhaxeeya waxa weeyaan waa makaani iyo darawal waa isla midkii hooyadu waa ta guriga ka shaqeysa cuntadana karisa waa isla intii maadaama darawalka makaanimada ka maqneen waan yar ka yar step ma kordhiyay maadaama si wadi waayay waxaan darawalnimada ka fudud maadaama inay dhaqaman iyo wax badan gashan doonayo hadafkaygu ma sii waday waa kii Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun Allah barakeeyo yidhi hadafteer yari waxa u khidmaysaa hadafka weyn wixii hadafka weyn ka joojinayna la joojiyaa oo muhiim yahay noqon maadaama hadafyadan yar qabanayo hadafkayga weyn wadadiisa aan ku sii gaarayo yani waa basiidun de ruuxu inuu masaariif shaqeeyo oo baxa roorti tan hadafkayga maadaama u dhawdahay wadadeedii haysato saasaan u baxa maadaama hadafkaygu bayloodnimo yahay mustaqbalka insha Allah waxaan ka hanweynaa inaan baylood noqdo ilaahay idinkii markaynu halkan iska yar dhigno darawalnimada oo inu hawsha makaanimada galno intaad ku guda jirtay makaaniga ee ka shaqeynaysay geerashada maxaa caqabado la kulantay dadku hore uma arkin dhaqanka Soomaaliyeed waa ka ceeb oo waxa lagu yaqaan habluhu inay guriga fadhiyaan ay wax bartaan ama ay guursato maadaama imika macallin baa igu yiri bari macallin kuma gali karaan kuri wadadko dhan baa ila hadlaya oo ile maxaa ragga kugu soo daray markaan makaaniga baranay wixii guud waxa jiray sac xanuun ku dhacay oo inta wajiga diirka laga jaray wuxuu xooluhu way ka didi jireen toddobaadadii hore oo dhan iyo dadkuba laakiin markii dambe ay la qabsadeen ayaga kula qabsan doona maadaama in hore u arag ay wax ku cusub ay ahayd naag geerash aroortii tagta oo ka shaqo gashay sida ragga oo percentage ragga helayaan la helaysa taas qabadahayd waxa la oran jiray waalid maan lahayn mayna dad ku dhalin ma xanuun kala jira maskaxiyan miyaad bugtaa ma isku jir baatay wax saas oranaya laakiin ani hadafkayga ka bilaabnaa ma maqlayn booxan عقبتك هلا كل مس أنت وين مو يعني
caqabad gacmo ah ama dib ku keenaysa Soomaalidu uma keenayaan hablaha oo way aad bi hablaha u ilaaliyaan laakiin afkayga la hadli jireen maxaa ku kalifay maxaa ku dhibay maxaa ku cadibay wax saas yeelanaya Soomaalida marka laga hadlayo deegaanadeeda waa dhifiya naadir inay gabadhi geerash ka shaqeyso ama ay mechanic barato dadku markay ku arkaan waxyaabaha ugu badan ay koorin jireen maxaa kamida sidoo kale rag baa kuugu imaanaya geerashka oo inta badan u sameynaysa gawaarida iyagana ka waran xaalkooda maalmaha kamida waa marka sanad ku dhawaad joogo baa gaari harto baa fi aydabo nin la soo galay marka ina la shaqeeyo la doonay aniga iyo qof kale aan lagu qoray marka anoo shaagi furay uu yimi wuxuu yiri waa maxay gabadhu waxa lagu gabadhu shaqaale ay kamid tahay wuxuu yiri armushashada gaarigu uma ogoliyay wili marka wax badan bad arkaysaa laakiin hadafkaaga duu ka balaaran yahay sidii xaafada waalidku uu kula dhaqmayo bad moodi waalidku waayo ilmaha qaladku ka qabtaa uu cadaadiya marka wallahi xumaan uma soconin wanaagun bay ahayd shaqadeedu maan eegani maadaama hadafka uu shaqeynayo hadafyada yar uu shaqeynayo hadafka weyn marka hadafka kala ka balaarna caqabad ay away jirtaa oo moral xumo ku keenaysa laakiin hadda markaad si socod wad loobis marka laga yimaado inaad makaaniga baratay ku shaqeysay maxaa kale oo barato shahaado haysataa caafimaad clinical nurse diploma haysta degree hadda aan wada sanadkii gudmeeyay aan ku jira PS nurse caafimaad baan waxbarashada kale ama shahaadooyin kale haysato marka laga yimaado tanad ku shaqeysay ma ku shaqeysay ayaga may inaan ku shaqeeyna xataa madalihi waayo hadafkayga waa labada waa dirawal ciriyo ka dhul waxaan kala hadii ku shaqeeyay xataa kuma qanacsani baylood ma hadafkayga ah kolastiga ugu dambeeyo marka insha Allah wallahi kuma shaqeyn laakiin hadda ay qabsato waan ku shaqeynaa waqtiyada firaaqada inta badan maxaad qabataa kubadan daawada halkeed rabtaa inaad gaadho heerka ugu sareeya qof dumar gaadho oo baylood asli xasan cabaade 1974 bahayd Soomaa gabadhii Soomaaliya geeska Afrika ugu horeysay insha Allah sanadada soo socdana inaan noqdo warajeeniya Asmaa Cabdi Cali baylood ugu dambeyn maxaa dadka fariinaad la wadaagaysaa horta rag iyo dumarka Ilaahay ma simin laakiin wuxuu ninku qabanay way qabanaysaa madaxweynuhu noqonaya ayaduna ay noqonaysaa رئيس الوزراء ونقني أيضا نقنيسا مركا هدف كي عقل قلق متبايع تمركي رجو مركا إن شاء الله وحن لي هاي هدف كاغو مركو كبل لارين هاي waxay doodku arkayaan hadafkaaga markuu ka balaaran ma joojinaysid oo faraska marka lagu xiro labada caag waxa dhanka looga xiro su'aalkiisa hore oo eego marka maadaama hadaf leedahay uu ka balaaran waxaasba waxay ahayd Asmaa Cabdi Cali oo maanta martin oo ahayd waxay baratay makaaniga waxay ka shaqeysay mid kamid ah geerashada ku yaala magaalada Jigjiga maanta marti ayay noo ahayd waxay idila socodsiinaysay barnaamijka anigoo Nimco Cumar Xuseen kamaradu waa Abiib Maxamed Cabdullaahi Askar intaynu barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo